السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaami walaal maalin wanaagsan. Video kale oo aad iyo aad u qiimo badan rabaa inaan insha Allah idin wadaago. Marka hore Ramadaan Kariim, haddaad igu cusubtahay walaal fadlan subscribe-ka iga ilaawin. Videogan wuxuu ku socdaa qof kasta oo waalida oo ubadkiisa iskuulka dhigtaan. Si la wada socono insha Allah tacaala Ramadaan waa gabaabsi, Ilaahay soonka cibaadada dhammaan naga aqbalo. ubadkuna haddii ay ku soo aado iid maalin iidan Eidul Fidriga ama Eid al-Adha ka doontaa noqotee, haddii ku soo aado maalin ubadku dhiganayaan iskuulka, maxaa xala? Iskuulka fasax ma laga qaadi karaa? Iskuulka fasax ma laga qaadi karnaa? Su'aalahaas aan insha Allah inaan kaaga jawaabo. Walaal waxaa jira antaraag muhiim ah oo aad buuxinayso oo iskuulka u geysanayso. insha Allah tacaala waxaan rabaa inaan antaraagaas in sharxo. Haddaa tahay waalid Jarmalka jooga ubadkiisa iskuul dhigtaan, fadlan video aad ku quseeyaa waxaad igu saacidaa walaal inaad subscribe-ka akoonka saarto si aan insha Allah tacaala video qiimo badan oo idin faa'iido soo geliyo. antaraag insha Allah tacaala hadda ayaan soo dhigi doonaa warqad wataas. antaraag magis waxaa antaraag of befragung for Unterricht wegen Religionisen Feierlichkeiten Ramadan oder Osterfest. antaraagga waxaa la sameeyaa marka ay maalmaha religionka ama marka ay dadka muslimiinta ay leeyihiin fasaxyada diimeedka oo kale, in ardayda iskuulada dhigta loo fasax qaado, waalidku oo fasax qaadan. antaraagga waxaad ka heleysaa Google-ka, waad soo PDF baad soo dhigsanaysaa, dabadeetana waxaad sameynaysaa waad buuxinaysaa. Dawsad buuxinaysaa oo kula seegeed hay anfaqo. Halka waxaad ku buuxinaysaa qofka aad u dirayso. Okay, hier mit beantrag ich for meine Tochter meine Sohn. Kolba adiga qofka iskuulka ku dhigtaa, ma wiil baa ku dhigtaa mise gabar? hadday meine Tochter tahay halkaas Tochter calaamadaysa, hadday tahay meine Sohn kadib waxaad ku qoraysaa magaciisa saddexan iyo kalaaska iskuulka dhigto. Ay isfahan magaciisa saddexan iyo kalaaska iskuulka dhigto. Okay, maanta marka religionka marka maxay tahay maanta? Ma fasten brishan ba Ramadaan ba ama waa Osterfest ama waxa weeyaan Eid kale way Eid al-Adha. Okay, tahay baad tig saarsaa kadibna datumkaad gelinaysaa intuu maqnaan doono. 2 cisho, 1 cisho, 3 cisho. waa aad iyo aad muhiim tahay. hadda yarsanna waa la macay video kan dheersanna waa muhiim walaal qaali. dad badan waalidan ugeyn baa jira, fadlan u follow u share garee baan ka wadaa. videogan like badan siiya walaal. walaalkiin weeyaan oo markasta wanaag idin jecel. Okay, maxaa soo haray? xagga hoose soo sameey, xagga hoose soo digaysaa Elisha dieser Feiertags bitte ich Sie hoffentlich meine Tochter oder meinen Sohn ku doonada for einen Tag auf Unterricht freizustellen. markaas daatada sheegaysaa magaalada degan tahay iyo waqtiga iyo saxiixaad sheegaysaa ay qoraysaa. runtii videogan aad iyo aad muhiim yahay. fadlan walaal waxaan idin ka codsanayaa insha Allah tacaala waalid kasta ugu geysaan antaraagaas waa muhiim si ilmuhu nolol soo ciido, si ilmuhu soo tukado insha Allah tacaala sameeya oo waxaad sameysaan antaraaga markaa sameysaan maanta waa khamiis, britol insha Allah dug soo gaaro ama hadda dug soo gaaro maanta sameyso si aad britol iskuulka u geyso si insha Allah tacaala haddii iidu waxaan inay hadda isniinta kay noqon doonto Ilaahay baa og, laakiin sa hadday loo badin inay isniinta noqon doonto, haddii isniinta noqoto isniinta maalin caadi ay ka tahay halkan. markaasuu ilmahu nolol soo farxo oo nolol soo qaato waqtiga waa in antaraagan sa u dhaqso badan aad geysaa si uu lagaaga soo aqbalo. dabeetana haddii iskuulka ilmuhu cudur daar la'aan uu maqnaado, runtii wadankan xoogaha sida wadankeenu kale maaha, waxa laga yaabaa in dhibaato waxaas kugu timaado, laakiin si aan dhibaato kugu iman ba ka taxadir. dabeetana ilmahaaga waxaad sameysaa muxuu ahaa antaraaga u buuxi una gudbi. runtii aad iyo aad buu muhiim u yahay antaraagan asa waalid ahaana aad iyo aad ayuu noo faafahaya. marka walaal waxaad sameysaa insha Allah tacaala videogan u share garee waalidiinta antaraagan ha ku dhiiranayaan. maalintaas iida ilmaha dhar iid manuseebin dad muslimiin ah nahay, inagu ma nihin dad diimo kala haysta. marka waxa waajib nagu ah as muslim ahaan in aynu ubadkeenu ayna la farxaan, in aynu maalintooda u labisno, in aynu dibadda u saarno, in la soo ciyaarno si ay farxadda nogala qayb qaataan. maxaa yeelay 3 cisho aynu soo mareen maasha Allah. maalintaas waa maalin farxadeed oo de muslimiinta dhan loogu talagalay adduunka meel kasta ka joogaan. markaas oo yani ubadkeenu nala soo farxaan, nagala soo farxadda nagala qayb qaataan insha Allah tacaala. in wax la dhigto runtii dee qofku in wax dhigto way fiicantay, laakiin maalintaas oo kale waa maalin yani dunyada dhan muslimiinta fasaxiin. marka sidaa darteed baan jeclaysan videogan soo dhaqsaa badan ila wadaago. aad baan idigu mahad celinayaa si aad ila socotaan. walaalkiin guuleed weeyaan. runtii halkan waxaad ka heleysaa wax kastoo information aad Jarmalka uga baahan tahay ugu badnaan. aad baan idin salaamaya. wassalaamu calaykum.